sanadka 2023 ayaa noqon doona sanad muhiim ah tartanka Mareykanka iyo Shiinaha waxaana dhinac walba uu isku diyaarinaya inuu gool ka dhaliyo ka kale. Stephen Jin, kormeeraha dhaqaalaha caalamiga ayaa sheegay in tartanka muhiimka ee Mareykanka iyo Shiinaha uu sii xoogaystay 2022 ay u badan tahay inuu noqdo mowduuca ugu muhiimsan ee tobanaanka sano ee soo socda. sanadka 2023 ayaa la filayaa inuu markhaati ka noqdo saddex dhaqdhaqaaq oo muhiim ah oo salka ku haya xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha. Waxaa jira saddex goobood oo caalami ah oo tartanka Mareykanka iyo Shiinuhu sii xoogaysan doono waxaana laga yaabaa inay saameyn weyn ku yeeshaan loolanka awoodeed ee u dhexeeya labada kooxood ee adduunka ugu tunka weyn. Yurub ayaa la filayaa inay qayb ka noqoto tartanka Mareykanka iyo Shiinaha. Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka ayaa booqday Beijing waxaana la filayaa in madaxweynaha Faransiisku uu halkaasi isna tago. Waxaa jira qaybo ka mid ah wadamada Yurub oo doonaya inay soo jiitaan maalgashiga Shiinaha, iyadoo Hindiya hogaamin doonto G20. Washington ayaa laga yaabaa inay ogaato in riyadeeda yareynta doorka Shiinaha ee silsiladaha sahayda caalamiga ay tahay mid suuragal ah. Waxay muuqataa in qaaradda Afrika noqon doonto goob adag oo ay ku tartamaan Ameerika iyo Shiinaha. Dabayaaqadii 2022 aqalka cad ayaa qorsheeyay inuu u wareego dhanka Afrika. 15 bilyan oo dollar oo heshiisyaha ayaa ka soo baxay shir madaxeedkii ugu horeeyay ee madaxweyne Joe Biden uu la yeesho hogaamiyaasha Afrika. Isha ugu weyn ee saameynta Beijing ku leedahay dadka kale dabcan waa baaxadda dhaqaalaha Shiinaha. Kubaca degdega ahi waxa uu keenay dakhli u saamaxa Shiinuhu inuu balaayiin dollar oo maalgashi u diro wadamada soo koray. Wuxuu maalgeliyay dhismayaal ciidan oo baaxad leh iyo hanti aan tiro lahayn oo dibadda ah. Laakiin dhaqaalaha Shiinaha ayaa hoos u dhacay 2022 sababtu waxay tahay siyaasadda eber ee Xi ee ku saabsan Covid halka adduunka intiisa kale la furfuray.